sheekh cabdulxaq xasan macallin oo ka mid ah culimada qaabka rusheynta casharka iyo qur-aanka kariimka wax ku daweysa oo dhowrkii toddobaad ee aynu ka soo gudubnay ku sugnaa magaalada Burco ayaa maanta soo gabagabeeyay shaqadii uu ka waday magaalada Burco. sheekh cabdulxaq oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo diinta ee gobolka Togdheer madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale ayaa la hadlay dadweynaha aad u tiro badan oo ka mid ah dadweynaha magaalada Burco. intii uu ku sugnaa goobtaasi ayuu sheekh cabdulxaq Rusheeye halkaasi ugu ururiyay dhaqaale gabadh dhalinyaro oo uu haleelay xanuun ay maaran waayeen dhakhaatiirta dalku taasoo ka baxday qaybta umulisada ee macadka tababarka caafimaadka ee magaalada Burco isagoona qayb ka noqday dhaqaale ururintaasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شيخ رشية وسارد الدين تي وقافته ويسود ويسي امتحان بي كقاتي gobollo badan buu ka soo shaqeeyay dhul badan buu ka soo shaqeeyay waa lagu mahadiyay waxaan anigu oran karaa waa marka minoo soo jabay oo malabkiisa saaran yahay oo caafimaadkiisa saaran yahay oo quraankiisa saaran yahay waxyaabaha lagaga badbaadaya waxa kamid ah in wixii ilaahay amrayna aynu qaadano wixii ilaahay kan inaga nahiyayna aynu ka tagno uu siiyay waqti qaaliya buu siiyay saacado dhan buu kaligeed siiyay ilaahay waxaan ka baryaa horta ducada inuu aqbalo. waxa kaloo raacda gobolka Togdheer haddaynu nahay tijaar baa joogto shirkadaha jooga waxaan ka codsanayaa shirkadaha jooga gobolka Togdheer sida Dahabshiil iyo Telesom ama shirkadaha dhamaantood noocay kastaba ha noqdeen inay ka qayb qaataan dadka ku xanuunsanaya goboladooda oo waliba inanta ay caafimaadkeeda ka qayb qaataan lambarkeedina ka yahay. gabagabadii sheekh cabdulxaq xasan macallin ayaa tilmaamay in magaalada Burco uu ka dhisayo goob weyn oo uu dadka ku quraan saaro. Calidaahir Maxamed Boos TV caalamiga Universal Burco.